السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا warka ciyaaraha bulsha sports TV qodobada idin kaga hay waxa kamid ah Talyaaniga oo iska xaadiray finaalka Argentina oo iska xaadirisay finaalka Copa America Ashraf Hakimi oo ku biiray PSG Edison Cavani oo laga qaaday number 7 haatan kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan Talyaaniga oo iska xaadiray finaalka faafahinta warkan waxa inoo haaya Xasan Cumar Xuseen xulka qaranka Talyaaniga ayaa u soo baxay finaalka tartanka Euro 2020 iyagoo rikoodhayaal 4 iyo 2 ku garaacay Spain kulan adkaa oo lagu daray waqti dheeraad ah Talyaaniga ayaa ciyaarta gool loo hormaray waxaana daqiiqadihii 60aad u dhaliyay Kaiser hase yeeshee Alvaro Morata oo badil ku soo galay ayaa gool barbaraha u keenay Spain 90kii daqiiqadood oo ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay gool iyo gool 30 daqiiqadood oo dheeraad ah oo lagu daray Talyaaniga ayaa finaalka la ciyaari doona England iyo Denmark Argentina oo iska xaadirisay finaalka Copa America faafahinta warkan waxa inoo hayso Muno Cismaan Cali xulka qaranka Argentina ayaa u soo gudbay kulanka ugu dambeeyay tartanka Copa America iyagoo rigoorayaal ku soo garaacay Colombia ciyaar isla rafteen oo ku soo dhameysteen 1-1 laakiin lagu go'aamiyay rigoorayaal 3-2 Lionel Messi ayaa dalkiisii ku hogaamiyay inay yimaadaan finaalka xilli uu ku riyoonayay inuu qaado koobkiisii ugu horeeyay taasoo haddii ay dhacdo soo afjari doonto inkaartii ka haysatay dhinaca xulkiisa oo ka sugaya inuu guulaha uu kooxda Barcelona gaarsiiyo iyaguna wax ka siiyo Argentina ayaa finaalka ugu tagtay Brazil oo salaasadii hali eberka ka soo badisay Peru ciyaartan oo ay ku kulmayeen Neymar oo horey ugu duceysatay in Argentina soo baxdo oo ay finaalka isku arkaan Lionel Messi oo ay waxay dhici doonaan Axadda 11 July labada kabtan ee Argentina iyo Brazil ay Messi iyo Neymar ayaa saaxiibo xiriirkooda fiican yahay oo u soo wada ciyaaray Barcelona Ashraf Hakimi oo ku biiray PSG kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa dhameystirtay saxiixii muddada la sugayay ay kula soo wareegaysay xidiga reer Morocco ee Ashraf Hakimi kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda Talyaaniga ee Inter Milan Ashraf Hakimi ayaa shalay u duulay magaalada Paris si uu tijaabada caafimaadka ugu maro kadib u saxiixo heshiis 5 sanadood ah oo uu kooxdaasi ugu ciyaari doono kadib saxiixa Ashraf Hakimi PSG ayaa la filayaa in saacado gudahood ay ku dhawaaqdo saxiixeeda labaad oo noqonaya kabtankii hore ee Real Madrid ee Sergio Ramos oo si xor ah ay kula soo wareegayaan Paris Saint-Germain ayaa heshiiska laacibkan waxay ku garaacday Chelsea oo kula tartamaysay laakiin lacagta Inter Milan ku xidhay oo ahayd 70 milyan oo gani ayaa lagaga guuleystay kadib markii ay kooxdaasi reer Faransa miiska saartay Edison Cavani oo laga qaaday number 7 faafahinta warkan waxa inoo hayso Muno Cismaan Cali Edison Cavani ayaa laga qaadayaa lambarka caanka ah ee lambar 7 waxaana la siinayaa saxiixa cusub ee Jadon Sancho inkastoo Manchester United ayna si rasmi ah ugu dhawaaqin in Sancho uu xiranayo lambar 7 haddana warbaahinta Ingiriiska ayaa tibaaxday Jadon Sancho oo Manchester United ay Borussia Dortmund kala soo wareegtay 73 milyan oo ganiya ayaa Old Trafford iska xaadirin doona marka uu dhamaado tartanka qaramada Yurub xilli ciyaareedkii hore ayuu Cavani dhaliyay 17 gool oo dhammaan tartamada ah waxaa lagu tilmaamayaa ciyaartooygii ugu wanaagsanaa ee xiray lambar 7 intii ka dambeysay Cristiano Ronaldo intaasi waxa ku soo gabagabeynayna wararkeena ciyaaraha bulsha sports TV waa aniga Qamar Maxamed Cumar sidaas iyo nabadgelyo